Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan baranaynaa warin uu soo wariyey mid ka mid ah saxaabadii weynaa ee nabiga sallallahu calayhi wasallam oo loo yaqaanay Anas ibn Malik radiyallahu canhu. Waa sheeko aad u qurux badan taasoo ah nin reer baadiye ah ama baadiyaha ka yimid oo soo galay masaajidkii nabiga sallallahu calayhi wasallam kadibna masaajidka dhexdiisa ku dhex kaadiyey. Marka Anas wuxuu ku bilaabay sida tan. Wuxuu yiri mar anagoo dhex fadhina masaajidka dhexdiisa oo la fadhina rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa waxaa soo galay masaajidka nin badwiin ah. Ninkii ayaa wuxuu bilaabay inuu ku dhex kaadiyo masaajidkii nabiga sallallahu calayhi wasallam. Dadkii masaajidka ku jira ayaa aad iyo aad ula yaabay oo aad iyo aad ugu xanaaqay oo ka carooday waxa ninkaas uu sameynayay. Ma kadibna waxay ku ordeen ninkii, markaas waxay ku yiraahdeen mah kalmadaasoo marka macnaheed uu ahaa oo muujinaysay sida ay ugu caroodeen ama ugu xanaaqeen waxa uu sameynayay ninkaas, taasoo marka tusinaysa heerka gaarsiisan tahay ama xumaanta uu sameeyay heerka gaarsiisan tahay ayagoo oo damacooda u ahaa inay edbiyaan ama ay garaacaan. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa soo dhexgalay oo ku yiri dhaafa ninka u dhaafa kaadiisa ha ka joojinina, meeshiisa ha fadhiyo ha kaadiyo ee faraha laga qaado. Kadib asxaabtii ayaa ka tegay ninkii ilaa uu ka dhammaysto kaadidii. Markii uu dhammaystay ayaa nabiga sallallahu calayhi wasallam ninka ayuu u wacay. Markaas wuxuu ku yiri wax walba oo xun, kaadi ha ahaato ama saxara ha ahaato, wax walba oo xun ma aha wax ku habboon in lagu dhex sameeyo masaajidka dhexdiisa. Masaajidda waxaa loo dhisay ama u suuban in Ilaah lagu xasuusto, Qur'aan lagu akhriyo, lagu dugto ama hadal oo u dhow hadalkaas ayuu yiri rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Kadib rasuulka sallallahu calayhi wasallam nin ayaa wuxuu ku amray in uu keeno hal baaldi oo biyo ah, kadibna uu ku shubo meeshii ninka uu ku kaadiyey si wasaqdii iyo xumaantii ninka uu gaarsiiyey masaajidka loogu dhaqo. Ninkii reer baadiyaha ahaa ayaa kadib wuxuu bilaabay in uu dugto. Markii salaadiisa uu dhammaystay wuxuu yiri rabbigaygow u naxariiso ii naxariiso, nabi maxamedna u naxariiso, laakiin kuwaan ama asxaabtan oo nabiga sallallahu calayhi wasallam ha u naxariisanin, sababtoo ah wuxuu arkay naxariistii nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo sidii deganaanta iyo xikmada lahayd ee uu ula dhaqmay ninkii oo reer baadiye ahaa. Sheekadan waa sheeko aad iyo aad u qurux badan oo waxyaalo badan aan ka baran karno. Waxaa ka mid ah waxyaalo aan ka baran karno sida loola dhaqmo ama loola macaamilo dadka adag, macnaa dabacooda uu adag yahay oo aan wax maqlin oo madaxa adag. Haddii aad aragtay sida aad ula dhaqmi lahayd ayay ku tusaysaa. Sidoo kale waxaan ku baranaynaa dulqaadkii uu lahaa nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam ee xigmadii tirada badneed ee nabiga uu lahaa, sababtoo ah nabiga wuxuu ka joojiyey in dhibaatadii meesha ka dhacday inay kasii darto, sababtoo ah dhibaatada hadday yar tahay si fudud ayaa lagu xalin karaa, laakiin haddii ay sii weynaato waxay qaadanaysaa arrin macnaha dadaal tira badan ay u baahnaanaysaa in la sameeyo. Ninkii meesha yar ku kaadiyey haddii kaadiis laga joojin lahaa oo u ordi lahaa masaajidka oo dhan ayuu wasaqayn lahaa, laakiin nabiga waa ka joojiyey asxaabtiisa ninkii inay ku qayliyaan ama ay garaacaan, sababtoo ah haddii uu ordi lahaa oo ayagoo garaacaya masaajidka oo dhan kaadidii uu ku fidin lahaa waxay noqon lahayd in ay u baahnaato biyo badan in masaajidkii la keeno, in dad tira badan ay ku qaadato masaajidkii oo dhan in la nadiifiyo oo wasaqda laga zuuliyo. Marka nijaasadaas yar oo wax yar ahayd hal waxaa lagu shubay baaldi biyo oo yar kaasoo lagu zuuliyey ee nijaasadii soo gaartay masaajidka. Marka caruurey waxaan isku dayaynaa haddii aad fahamteen sheekadaas su'aalahan inaad ka jawaabtiin. Su-aasha koowaad ayaa waxay tahay haddaa aragtid qofka masaajidka dhexdiisa ku cunaya raashin oo aad iyo aad uu urkiisa u daran yahay maxaa sameyn lahayd? Qof masaajidka dhexdiisa raashin oo urkiisa aad iyo aad u daran yahay dadka ay dhibsanayaan oo basal ama tuun badan ay ka buuxdo maxaa sameyn lahayd? Su-aasha labaad ayaa waxay tahay maxay tahay sababta nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu ugu celiyey asxaabtiisa ninkii inay ku qayliyaan ama ay garaacaan? Su-aasha ayaa waxay tahay nabiga sallallahu calayhi wasallam muxuu ugu celiyey asxaabtiisa in ay garaacaan ama ay ku qayliyaan ninkii masaajidka dhexdiisa ku kaadiyey? Su-aashiina saddexaadna waxay tahay yuu ahaa qofka ku dhex kaadiyey masaajidka? Yuu ahaa qofkii ku dhex kaadiyey masaajidka?
su-aasha afraadna waxay tahay haddii aa aragtid qof masaajidka dhexdiisa soo ku jira salaad dukanaya oo telefoonkiisa uu soo dhaco oo music aad weyn u saaran yahay maxaa samayn lahayd? haddii qof telefoonkiisa uu soo dhaco asoo salaad la dukanaya oo music aad u qaylo badan uu soo dhaco maxaa samayn lahayd? marka haddii aad fahamtay sheekadaas aan soo sheegnay waxaa ka jawaabi kartaa su-aalahan oo dhan. su-aasha koowaad ayaa waxay tahay haddii qof raashin ku cunaya masaajidka ha ku qaylinin, si degan oo tartiib ah oo qofka asagoo kaligiisa oo qof kale aan maqlaynin hadaa wax u sheegtid qofku ku dhageysanayaa. dadka masaajidka kalena muxuu ahaa ma noqonaysa in qofkii ay caybeynaysa dadka hortooda ah. waxaa laga yaabaa inuu hadalkaaga dhageysto oo isla mar dambe la imaanin waxaas masaajidka qofku ku dhex cunayo. su-aasha labaad oo ahayd sababta nabi maxamed uu ugu joojiyey asxaabtiisa ninka inay garaacaan waxay tahay in haddii ninkii oo masaajidka dhexdiisa lagu bursan lahaa ama la garaaci lahaa in dhibaatada meesha ninka uu ku dhex sameeyey ama nijaasada uu sameeyey ay kasii weynaan lahayd oo dhibaato kasii badan meesha ka dhalan lahayd. marka haddii dhib macnaha oo wax yar lagu xalin kara ma aha in lasii weyneeyo oo mushkilada lasii badiyo. su-aashiina saddexaad waxay tahay qofka ku dhex kaaday masaajidka wuxuu ahaa nin baadiyaha ka yimid oo badweyn ah oo masaajidka nabiga dhexdiisa soo galay oo ku dhex kaadiyey. su-aasha afraadna waxay tahay qofka haddii asoo dukanaya ama masaajidka lagu dhex jiro oo telefoonkiisa uu soo dhaco ama hees ama musica u saarnaato ama wax walba u saarnaado ma fiicna in aad ku qaylisid, sababtoo ah haddii qofkii dadka hortiisa lagu ceebeeyo asagana wuxuu bilaabaya inuu masaajidka ku dhex qayliyo oo jamaacadii masaajidka ku jirtay dhan ay isdagaalaan oo meesha qaylo iyo fawdo ay noqoto. marka in xumaan aad joojisid oo qof telefoonkiisa uu dadka macnaha ku dhex qayliyo masaajidka oo dadkii uu mashquuliyo waxaa kasii daran dadka inay isu dagaalaan oo masaajidka dhexdiisa laysku dhex qayliyo oo dadka muslimiinta dhexdooda ay isdagaalaan ayaa ka weyn in qof telefoonkiisa uu soo dhaco. haddaa rabtid waxayna u sheegtid waa qofka si gooni ah inaa ula hadashaa oo aa ka dhaadhicisaa in marka salaada la dukanayo in qofka telefoonkiisa uu damiyo ama uu silent ka dhigo. marka waxaan rajaynayaa in xikmado badan aa ka faa'iiday qisadan uu soo wariyey Anas ibn Malik radiyallahu anhu.